halkan yar waxaan ka yar falanqeynayaa arrin baa laga hadlayay qabiilka iyo qabyaaladda iyo waxa noocaas oo kala ah anigu laba qaybood baan u kala aqaan qabiilka iyo qabyaaladda qofku deenu qabiil ahaado wax ku jawaanay ma jiraan waa caadi laakiin waxa cudurka nafsaaniga ah ee Soomaalida haya anigu waxaan aaminsanahay qof aan lahayn ma jireen heer kulkeeda ku kala badan ma aaminsanahay anigu layma marsiinayo qof Soomaali aan qabyaalad lahayn waxaana ugu badan kuwa ka cudur daartay inuu qabyaalay ما أمسنانو قف هير كل كذا كلا بدأ شيء خب Somali جاي مساجد كسر معه مركو مغلوب هير كود مبلغ هذا الحيو حتى أنو ماشى كقريب جنون وين وأجا وشاتور هير كم حللية مات مركب هاشا إلهي هاي نكسره مركب حد أنت بدن وينو كهذا الله نين اللي يرهدو علي موجلا ونعرسو أبوانها وحير يقول ضلوله وهذا الحيان من جوفيان والقبيلة إنه شكد دينه بينو تايسن أنا بهاش من دينه marka waxaan oran lahaa waxa kale oo ina ku badan qabyaaladda nacab Soomaalida aad buu ugu badan yahay waxa way qabyaaladda nacab waxaad arkaysaa nin koronaya qabyaaladdu ma wanaagsan tiisu isagu ku dhaqmaya waa caadi laakiin qofka kale tiisa buu diidan yahay marka waxaan ku soo koobayaa war bal aynu dadaalno insha Allah biidmillah kariim aad baan idin salaamay